meesha waxa weeye way ciilayeen niman indhala oo macluulaya iyo shirkadaha qabsaday biriga uguma qabanayno shaqayna mayno haddaan nahay reer Gabiley Ugandis kasta hadday soo galaan annaga gacan kaga qabanayna halkani oo barxadda garoonkii hore ee magaalada Gabiley ayaa waxa saaka mudaharaad salmiye iskugu soo baxay isla markaasina gabi ahaanba shaqo joojin ku sameeyay shaqaalaha xoogsatada ee ka shaqeeya dhismaha kuwaasi oo cabasho ka muujiyay shirkadaha dhismaha oo ay sheegeen inay tacadi badan ku hayaan iyagoo tirsanaya in ay yoomka ay ku shaqeeyaan shirkadahaasi yahay mid ka hooseeya deegaanada kale ee gobolka Gabiley iyo guud ahaan Somaliland shaqaalahani xoogsatada ee dhismaha oo iskugu jira kuuli wastaad nijaar iyo ranjiile iyo dhammaanba dadka ka shaqeeya xirfadaha dhismaha ayaa sheegay inay ka cabanayaan shirkadaha dhismaha isla markaasina aanay siinin yoom ku filan sida hadalka u dhigeen iyagoo sheegay in sixir barar badan oo ka jira dalka aanu ku filayn yoomka ay qaadanayaan waxna ay baaq u direen wasiirka wasaaradda hawlaha guud barasaabka gobolka Gabiley maayirka magaalada iyo golaha deegaanka iyagoo ugu baaqay in arintooda la soo farageliyo soo marno oo la ii sheegin inuu garta oo wax siiya oo wuxuu goosasiya kharada furtay ee dadka masaakiinta dhiigooda dhabaqsanaya waxaanu leenahay waar dadka la mid loo shaqeeyo dadka reerkiisa waa idin la mid oo bakhareeyo meherada wadaleyn waa dad la mid ah oo sidina meherada leh waar dadka la mid laqdo oo dadkiina u hurayoomka idinkuna ganacsiyeelmeed iyaguna waa murqmaal waar yoom wax u tara oo ku filan siyaanu leenahay nimanka bakharada haystana shaqaalaha Gabiley way baqtiyeen gaajaalayso dhexda suunka ku xidheen gaajo caalamka waxa lagu qaataa 200 oo kun baa lagu qaataa meesha u hooseysa Gabileyna 60 ba kuuligu weeyi wastaadintu 120 waxa weeyi waa 120 baan quniri was 130 maxay kala dhigmaan wadaw meesha waxa weeye way ciilayeen niman indhala oo macluulaya iyo shirkadaha qabsaday waxa weeye waxay caalamka lagu qaato hala siiyo sida awgeed waxaan leeyahay shaqaalaha nimanka shirkadaha iyo dadka wax dhisa kor ha u eegaan oo lacagtooda ha gaarsiiyaan waxay goostaan soo kuliyo kooda ka dhigaan 100 ka dhigaan wasaadka ka dhigaan 200 ka dhigaan nijaarka ka dhigaan 200 ka dhigaan way de waxa ma gooyay maanta hadaa u dheel ka gasho 60 ku baa qoray qaada 60 ku iska yeelaa goornaya hadduu laba jeed bijaaj raaco waxa laga qaadayaa 300 waxa ma geeyay xaafadii baa laga doonaya oo baa laga doonaya oo iskuul baa laga doonaya oo qaran baa laga doonaya waxa uu sheegay nimanka shirkadaha nimanka inuu qaran ka bixisaan oo baa ka bixisaan way xoogsanayaan xoogoogu wuxuu goosasiya leenahay wastaanta laga dhigo 200 kuuligana laga dhigo 100 uma joojinayno biriga uguma qabanayno shaqayna mayno haddaan nahay reer Gabiley Ugandis kasta hadday soo galaan annaga gacan kaga qabanayna shaqaaluhu aad ugu maasaya shaqadii sidii hay'ad buu joojiyeen 10 kuna la kordhiyay wax way ka feen weyday marka shaqaalaha aad baan ugu mahadnaqayaa shaqada ay joojiyeen anaguna waxaan gudiidahay wuxuu saareen inaan hawsha u soo dhamayno hawshayadii dhexdhexaadinta ayaan gudiiday ahayn foormaaninta magaalada iyo gudiidii aanu iska dhex dooranay aanu dhexdhexaadinayna shirkadaha iyo shaqaalaha hawshaas way soo gabagabowday waxaana ku soo gabagabowday shaqaalihii oo shaqadii ka hor timid oo shaqadii joojiyay ku cabaana shaqaalaha oo shirkadaha Gabiley oo nagu jooga dhiigeygana miranaya gudi baan dooranay aanu kala dhiraar ka kala soo hadla way la hadleen way diideen wax kordhiyaan 10 kun baan soo gaareen kordhinayaan 10 kun oo tarmayaan waxaanu qaadanay horna ku xaa 6 kun shilin 6 kun shilin hadii meerka arso sharabo ma goonayaan marka waxaan ku cabaanaa ma saak shaqadii joojinay in ay shirkaduhu la mid noqdaan shirkadaha Soomaaliland kale wasiirka hawlaha guud gudoomiyaha golaha deegaanka barasaabka gobolka dhammaantood arrinkaasi ha eega beeralaab hadduu yahay wax kasta dhool gidir waxaanu ka cabananaa walaalahay oo nagu yasay shaqadayadii murqmaalkee dhididki calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu yidhi taa waxa noo sii dheer iyadoo haddii la ilaa maaragtayay shaqaaluhu markuu dhididka intuu iska meedhin nabiga calayhi salaatu wasalaam siiya buu yidhi xaqooga nama siiyo ilaa 10 habeen meel sugi ilaa 60 waxa weeyaan
walaalahay waxaanu kaga cabanaynaa inay lacagtaa kordhiyaan shaqaaluhuna shan cisho oo guddida loo soo xil saartay lama shaqayn karo ka shaqeeyana laf baanu ka jebinaynaa waxaa ka cabanaynaa 3 shirkadood oo dhiigmiirata oo nagu helay magaalada Gabiley oo shaqaalihii waxay xaq u lahaayeen iyagu iska hortaagay waxa weeyi kuule iyo wastaad haddaan nahay waan ku dulmanahay baaha laga doonaya biira laga doonaya qaaraan ba laga doonaya waxay noo qabanaysaa ma jiro si la noo kordhiyo lacagta oo Soomaaliyeynta kale ee magaalooyinka jira alla mid noqono shaqaalaha kala bayrka ilaa kuwa wajaale ka arabsiyood ka Hargeysaad qiimo ay ku shaqeeyaan qiimo ka hooseeya ayaan ku shaqeynaa markaas sidaa darteed baan ka cabananaa ninka wastaadka ee shaqeynaya hadduu xaafadiisa biilin karin inuu iskaga taariiba qurux badan marna waxa weeye waxay shaqaalahaasi wada ogyihiin qoygii waa kacay karaadkii waa kacay niistii waa kacday bariiskii waa kacay sonkortii waa kacday wax walba waa kaceen madrasadii waxbarashadu waa kacday wax walba waa kaceen waxa kicin waa yoomka iyaga oo wayba meel walba waa ka kacay Gabiley baanu ka kaceen waxaanu leenahay shirkadaha wax dhisha wax xushooda wax isku fala Sakariye Nuux Ibraahim CBA TV gobolka Gabiley